raaxeelna markay aragtay inaanan yacquub carruur u dhalin ayay walaasheed ka masayrtay oo waxay yacquub ku tidhi carruur isii haddii kalese waan dhiman markaasaa yacquub aad uga carooday raaxeel oo wuxuu ku yidhi ma aniga ku jira meeshii ilaaha midhihii maxalka kuu diiday markaasay tidhi bal eeg addoontayda bilha u tag iyada inay jilbahayga ku duldhasho oo aan anna carruur ku helo iyada markaasay isagii siisay addoonteedii bilha inuu naag ka dhigto yacquubna wuu u tegey iyadii bilhahna way uuraysatay oo yacquub wiil bay u dhashay raaxeelna waxay tidhi ilaah waa i xukumay codkaygiina wuu maqlay oo wiil buu i siiyey sidaa daraaddeed magaciisa waxay u bixisay daan bilha oo ahayd addoontii raaxeel mar kaley uuraysatay oo waxay yacquub u dhashay wiil labaad oo raaxeelna waxay tidhi legdan aad u weyn baan walaashay la legdamay waanan ka adkaaday magaciisana waxay u bixisay naftaali lee ahna markay aragtay inay dhalmadaysay ayay kaxaysay addoonteedii silfa oo waxay siisay yacquub inuu naag ka dhigto lee ahna addoonteedii silfa ahaydna yacquub wiil bay u dhashay oo lee ahna waxay tidhi ayaan weynaa magaciisiina waxay u bixisay gaad lee ah addoonteedii silfa ahaydna wiil labaad bay u dhashay yacquub oo lee ahna waxay tidhi waan faraxsanahay waayo naaguhu waxay iigu yeedhi doonaan tan faraxsan magaciisana waxay u bixisay aasheer maalmihii sarreenka la goosanayey ayaa ruubeen tegay berrinka oo ka dhaxalay ubax oo wuxuu u keenay hooyadiis lee ah markaasay raaxeel waxay lee ah ku tidhi waxaan ku baryayaaye wax iga sii ubaxa wiilkaaga iyana waxay ku tidhi ma wax yar baa inaad ninkaygii iga qaadday weliba ubaxa wiilkaygana ma iga qaadan lahayd raaxeelna waxay tidhi haddaba wiilkayga ubaxiisa aawadiis isagu caawa wuu kula seexan doonaa yacquubna fiidkii buu beertii ka yimid markaasay lee ah ka hor tagtay oo waxay tidhi waa inaad ii timaaddaa waayo hubaal waxaan kugu kiraystay ubaxii wiilkayga habeenkaasna iyadii buu la seexday ilaahna wuu maqlay lee ah wayna uuraysatay oo yacquub bay u dhashay wiil shanaad lee ahna waxay tidhi ilaah waa i siiyey kiradaydii maxaa yeelay addoontaydii waxaan siiyey ninkayga wiilkii magaciisana waxay u bixisay isaakaar lee ahna mar kalay uuraysatay oo waxay yacquub u dhashay wiil laxaad lee ahna waxay tidhi ilaah dhiibaad wanaagsan buu igu dhibaadiyey haatan buu ninkaygu ila joogi doonaa maxaa yeelay waxaan u dhalay 6 wiil wiilkii magaciisayna waxay u bixisay sebulun dabadeedna waxay dhashay gabadh magaceediina waxay u bixisay diinah ilaahna wuu xusuustay raaxeel oo ilaah wuu maqlay iyada maxalkeediina wuu u furay